بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan inii salaamaya walaal dhammaan meel aad joogtaanba. waa mar labaad iyo silsiladdii cabdiraxmaan isafriyaad. maanta waxaan inii soo daynayaa ilaahay idamkiisa magaalo la yidhaahdo bashaa'ir. bashaa'ir baa la yidhaahdaa. waa meelaha ugu dheer weeye sacuudiga, dhulka ugu dheer oo macnaha aad buuraha macnaha aad iyo aad u ah dubaabku macnaha daruuraha ka koreeya weeye. waa manaatiqa waa kuwii albaaxa namaas ayay la siman tahay. bashaa'ir baa la yidhaahdaa. waatana insha allah waa inii soo duubayaa jamaalkeeda iyo quruxdeeda. aad baan inii salaamayaa walaalayaal. waa magaaladii bashaa'ir walaalayaal. waa mar labaad baan idinku soo celinayaa. magaalada qaybteedii hore bay ahayd intaasi. bashaa'ir baa la yidhaahdaa. waa magaalo aad u qurux badan. markaad ka timaadid albaaxa oo aad soo martid biljarashi ayay ku xigtaa. waxaa la yidhaahdaa bashaa'ir baa la yidhaahdaa. bashaa'irna waxaa ku xigta magaalo la yidhaahdo sabt alcalaaya. sabt alcalaaya ayaa ku xigta. in sha allah haddii wakhtigu ii saamaxo iyadana waan miqdaac yar baan inii ka soo duubayaa. aad baan inii salaamayaa. aadna waad u mahadsan tihiin. ila wadaaga muuqaalkaas wanaagsan oo ishu ay ku raaxaysanayso. meeshaan waa meeshii xadiiqadii belediyaha. xadiiqadii belediyaha weeye. malaahigii ilmaha cawaa'ilka ay geli jireen oo ku cayaari jireen. dabcan hadda waa xiran tahay oo maanta wakhtiyada ciidda saxmad aad u badan weeye. wakhtiyada ciidda waa saxmad badan tahay meeshaani. waa magaalooyinkan magaalo aad u qabow weeye oo wakhtiga sayfka ah oo kulaylaha ay noqoto amaseba xagaagaba ayaa halkan la yimaadaa. hoos waa kulayl. dhinaca tuhaama la yidhaahdo waa kulayl. xaggan hoose iyo biisha haddaad u daadegtidna waa kulayl. walaalayaal aad iyo aad baan idii salaamayaa. waana ku mahadsan tihiin la socoshada aad la socotaan muuqaalada aan inii soo gudbiyo. bashaa'ir baa la yidhaahdaa. magaaladan mar labaad baan inii ku celinayaa. sabtilcalaayaana ku xigta. waddadan aan marayaa waa waddo jabali ah, yacnii buuray dul maraysaa. dariiqan dariiq alxijaas qadiim baa la yidhaahdaa. dariiq alxijaas alqadiim baa la yidhaahdaa. buuraha dushooda ayaa laga sameeyey magaalooyinkan iyo waddadanba. ma garad innagoo dhulkeennu bannaan yahayna waxba waa ka qabsan la'nahay. waddan walba dadkii iska lahaa uunbaa hagaagsadaa. ma ahan inay inta dawlado bannaanka kaaga yimaadaan dalkaaga ay kuu samaynayaan, kuu hagaajinayaan, ama ay dadkaaga kuu daryeelayaan. waxaa loo baahan yahay haddaynu Soomaali nahay, waddaniyadda waxaa la yidhaahdaa waa ina ku yartaa. marka waddaniyadda inaynu qaadanno oo dhulkeenna jeclaanno oo aynu iska dayno inaynu ka guurno oo ka haayirno oo aynu cadow u loogno. dhulkeennu waa dhul wanaagsan, jawigiisu wanaagsan yahay. hadduu ilaahay waa kuu ron yahay, manaatiqiisu zaraacada beeraha ay ku wanaagsan yihiin, xoolihii la dhaqanayey. yacnii waa meel subxaana allah. jawiga qofka ajnebiga ah oo yimaado waddankeenna, hadduu sacuudi yahay iyo hadduu ajaanibta kale yahayba, dhul baad leedihiin bay yidhaahdaan. caam 93 askartii mamlaka carabiya sacuudiya ay aaday oo halkaas diyaaraddii royal airways ay qaaday
marka nimayinkii tegey waxay yidhaahdeen markaan waddankiinnii tagnay qaarkooda niman rag arkay oo ay uga sheekeeyeen ayaa jira sonkor baanu qabnay bay dhaheen sonkortii waa ka bogsoonnay maxaa keenaya jawigeennu waa jawi wacan jawi wanaagsan weeye waa jawi macnaha qofka bini'aadamka ahi uu ku noolaan karo caalamka meelna waxa lagaga nool yahay jaxiimaa lagu nool yahay kulaylka meelna waxa lagu nool yahay talaji baa lagu nool yahay oo ninkii inta badan Soomaaliya waa ay tagtay Yurub marka allaale markaad Suuriyaba haddaad gaartid Turkiya tagtid khalaas Lubnaan waa talajkii baa kuu bilowday markaad Suuriya ka soo baxdid oo Urdun soo gaartidna waxa kuu bilaabmaya saxare marka ilaahay dhulkeenna haynoo nicmeeyo haynoo nabadgeliyo cadowgana allaha ka qabto inta duulaanka ku ah ilaahay idamkiisa allahayna ka yeelo dad iyo dawlad isjecel oo gacmaha isqabsada allahayna ka yeelo intaasaa ku soo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu